بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. آياتها من سورة الحجرات، من سورة لا تقدم. إلهي سبحانه وتعالى وحول إليه دديه أيها الناس، جميع الناس، مؤمن قال وحول النغض إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. إلهي وحول وحيدك أبوري لم يددك. نبي الله آدم روى لغا أبوري، ومنا حواء فرسة لغا أبوري. انت وحي قدم ابن آدم لم يددك إلا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وهو يلا أب الهين، ومن محل الله قدرة الله عز وجل كويبي. مرك إلهي وحول waxaan idinka yeelnay wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'il. ilaa dadku marka ay dhalaan way bataan, furuuc bay noqdaan, macnaha waa badanahay. marka hadhow dadku marka waxay noqonayaan xaafado iyo degmooyin iyo magaalooyin iyo gobollo iyo qabaa'il iyo shucuub, waxyaalo fara badan bay noqonayaan. ilahay marka wuxuu leeyahay waxaan u yeelnay litacaarafuu, inaad isaqoonsataan, oo keliya ninkaa intuu degan yahay, intuu ka yimid, yuu yahay, reerkuu yahay. marka tacaarufkaasi keliya magaca keliya maayo. qof horta inaad wax ku darsato, inaad wax la wadaagto, ama adduunyo ha noqoto, dhaqaale ha noqoto, business ha noqoto, ama jiraan ha noqoto, ama maxaa lalahay saaxiino. waxaa rabtaa qofki inaad iska ogaato dhaqankiisa, qaabkiisa, meeshuu ka yimid, guriga uu galo, meeshuu ka soo baxo. waxaa dhow le qofkaan saaxiibkaa u noqonaya ama waxbaad la wadaagi doontaa. marka tacaarufkaasi marka magaciisii iyo meeshuu ka dhashay iyo meeshuu ka yimid, mihnadiisu waxay tahay, waxa uu galo, waxa uu gudo, intaasoo dhan bini'aadamku waa u baahan tahay. marka ilahi waa tacaaruf, inaad isaqoonsataan. okay, maxaa ka dambeeya marka? intaa ilaahay uu abuuray wax kaleeto oo ka dambeeya male. inaad isdishaan, inaad isxaqirtaan, inaad isbaabi'isaan, inaad isgumaysataan, inaad isdulmisaan, kulli kuma jirto. litacaarafu bis, inaad isaqoonsataan keliya. qof xaafadda uu galo keliya, laakiin in qabiilkiisa ama meeshuu ka yimid ama shacbuu ka yimid ama dhulku ka yimid lagu dulmiyo, caqli iyo diin iyo sharaaci wax ogol male. markaas ilaahay wuxuu leeyahay ina akramakum cinda allahi atqaakum. waxaa laga yaaba marka shucuub iyo qabaa'il la noqday, dadku dadna waxbay yeeshaan, dadna dhaqaalay yeeshaan, dadna waxba haystaan, dad madax bay noqdaan, dad madax ma noqdaan, dad magac bay yeeshaan, dad magac ma yeeshaan, dad marka hadhow ibn aadamka marka waxaa laga yaaba inuu is yirahdo adaadka qiimo badan, adaadka u sharaf badan, maadaama dhaqaalo leedahay, xoolo leedahay, mansab leedahay, inta aad leedahay maqlaysaa. marka ilahi wuxuu leeyahay ina akramakum cinda allahi atqaakum. ilahay agtiisa ninka ugu kalaamo badan, ugu qiimo badan, ugu sharaf badan waxa weeyaan kuwa kanka ilaahay ugu dhowaan badan. marka qofka inuu reerkiisa iyo tolkiisa iyo qanaamadiisa u ogaado oo u xiriiriyo oo u barto, sharciyadu way ogoshay. imaam tirmidhi wuxuu soo saaray xadiis imaam albani uu saxiix yeelay. abu hurayra radiyallahu anhu ardah waxa uu leeyahay nabi sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri tacalamuu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxaamakum. nasabkiina waxaad ka barataan inta aad qareerkaada ka xiriirinayso. waxaa ilaa qofka duusan aqoon cidda kula dhalatay, cidda ku dhashay iyo meesha ka timid, cidda kula dhalatay hadda cidda ma xiriirin karto. marka si aad qaraabadaadii aad u xiriiriso nasabkaaga iyo meesha ka timid oo xagga aaba iyo xagga hooyaba. faina silata raxmin maxabatun fi lahli. qaraabadoo la xiriiriyo, reerka qaraabada dadkaa kugu jeclaanayo. mahratun fi lmaali, xoolaha kugu badanayo. mansa'atun fi lathari, magac fiicanna adduunya baad uga tegaysaa. marka islaam wuxuu leeyahy qaraabadaada ka baro, nasabkaaga iyo abtirsiimada inta aad rabto maxaa lalahay si aad qaraabadaadi aad u xiriiriso. nabi salaatu wasalaam baa la weydiiyey, waxaa la yihi rasuulullahi dadkii akramu nnaasi, dadkii ugu sharaf badan, ugu kii qaraabo badan. nabi salaam waxa uu ku yiri atqaahum lillahi caza wajal, akramuhum cinda allahi atqaahum lillahi. sida qur-aanka uu sheegayo waxaa ugu karaamaysan qofka ilaahay uga cabsi badan. markaasay dheheen anagu kaa ku warsan mayno. markaa salaatu wasalaam wuxuu yiri dadka waxa ugu karaam badan nabiyullahi yuusuf alayhi salaatu wasalaam, sababtoo asaga waa nebi, aabihiisa yacquuba waa nebi, awowgiis koowaad waa isxaaq oo nebi, awowgiisa dambe waa khaliilullahi ibraahim alayhi salaatu wasalaam. markaas ya rasuul allahi maxaa lalahay
مركز كواس مقورسانينو مركز أصل كعرب يادي ورسانيسان عرب أصل كذي أوفد بدل مياد ليدي مركز لأنها قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا ولماك الجاهلية تذكر أشياء في الجرين ومقع يقيمها لها حتى إسلام نقدين ومسلمين نقدين ويدين تبرتين كواس أقول شرف هذا أنا كان مركز هرب جاهلي وشرف بقولها معنا إنه دد واحتره إنه دلقات بدل ليه إنه مضوا نمريو إنه وراق مسميه وضع الحاديو كذي مركز مصل ونقدي وراق يصير وراق بقدسين مركز كانت وكشرف بدية السلام مركز قفوا مركم محل الله وحول الله سبحانه وتعالى والسلام إن حديث صحيح مسلم وصار إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم إلى سأطالو أساكوا أبوري إيه حوالها اللي استمر فينا إلا حوالها أساكوا سيء ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إلى وحوفينا قلبك هذا إيه عملك هذا صحيحة خذوا قبلك قلبك وإيمانك عملك هذا صحيح مركزات أدوي إيه آخر ما الليباني سن النبي والسلام أبو ذر الغفاري والله الله أبو ذر وحكي حديث الإمام أحمد وصول صارم انظر وحرز فيه فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود أظهر أبو ذر ننقذوذا أما ننمذو وحر كما قيمة بدد إلا أن تفطره بتقوى الله وحر لما كاسي وحد ليرتاي لماركو إلا أن إلهي تقوي ساعات هي ستنمويه لما تقوي اعتماده واسمنتهن وحتكون فضل ما قيمكم يا لكرتها وكليا عبسيدة إلهي سبحانه وتقوى من الله عز وجل سبحان الله حديث عليه السلام وحولي المسلمون إخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى مسلمين ولا له يسمين مركب فضل وناك مجره إلا تقوى الله عز وجل موين السلام وحولي كلكم بنو آدم وآدم خلق من التراب إذا كنت من تراب بلغ أموري إذا كنت آدم كتمادين آدم الله بلغ أموري ولا ينتهين أقوام يفخرون بآبائهم أو لا يكونون أهون على الله تعالى من الجعلان وحولي هكجوا ويندد aabayaashoodii awowiyadooda ku faanayo ilaa haddii kaleeto ilaa agtiisa baalka xalwalwaalka lido way ka qiimo daran yihiin marka ujeedaa marka in fadligu uu yahay oo keliya alla ka cabsi subxaanahu watacaala nabi alai salaam maalintii marka la furtay buu dadka la hadlay waxa uu ku yidhi yaa ayuha annaas ina allaha qad hadaba cankum cabiyata aljaahiliyati وتعظمها بآبائها إلهي وحيد كانت جاهلي وحيالك اسمه قيمين جرين يسلويناتي ولا إلهي وإذن دافين سبحان الله وأبياش اللي هو فارجي هيا فالناس رجلان تذكر الله بغيره رجل تقي رجل بر تقي كريم على الله تعالى قف باريا وإلهي دين سكون فعلا وتقي إلهي كعب سنايا وإلهي أكتي سكوين كانت ورجل فاجر شقي هين على الله تعالى يمد فاجرة وبابا وإلهي أكتي سعن قيمة كلهين إن الله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. مركا أحاديثنا يا ناس السلام آياتنا كل وحي نوشي غيان محل الله قفكم مؤمنك إنه قيمة وكليه وكليه إنه محل الله وإلهي وكعب سناي شرف وكليه إنه إلهي ودوه شرف وكليه محل الله إنه والله علىك مغنايو وعليه السلام حديث محل الله يا رسول الله إنه صخير نبى كويل سلام من مركز سارة تذكي أبو خير بدل حديث الإمام أحمد وصوصاري قال خير الناس أقراهم وأتقاهم لله عز وجل أقراهم وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر وأوصله للرحم قفك محل الله قرآنك يقانا قفك إلهي سبحانه وتعالى كم بقنايا قفك محل وناقة فلايا قفك محل هما تدر ريبايا قفك محل قرابي سحريناي ninkaas dadka ugu fadli badan oo sallallahu alayhi marka adduunyada marka dadku marka ay qiimo ay ku leeyihiin marka waxa weeye bitaqwa Allah azza wa jalla inna Allah ila marka ilaahay waa ogyahay aliim khabiir waa ogyahay wixii guntiina ku jira wixii dhexdeena ku jira waxa qofku u qorsanay kulli ilaahay subhanahu wa ta'ala marka ayda marka waxay tusinaysaa mujtamaca si mujtamaca sharaf ay ugu noolaadaan oo dadku is jeclaadaan oo qof fadli badan u jiro qof qiimo uu ku leeyahay kulliya taqwa Allah azza wa jalla Allah naga dhigo dad saalixiina جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.